بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدحدا هيئة سوق مقابسي شركان وزير كحيجندا مدحدا كلا فردة السياسيين تا هوينك الصوماليات يقف كستو منصب كفرديابا يسدو صفدو كفرديابا waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan dabadeed arrinta nala ka rabo inaan ka jawaabno waxaa waa sidee ku soo celin karnaa sharafkii iyo karaamadii qaranka Soomaaliyeed. sideen ku soo celin karnaa sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed. waxaan rabnaa marka su'aashaas sidaan uga jawaabno ilaa dhakhtarka markuu qofka jiran dhakhtarka markuu yimaado horay daawo ugama qori karo. su'aalu weydiinayaa siduu u ogaado sifaadka loo hayo si uu u helo daawada ku habboon ee lagu daaweyn karo. waxaan rabnaa marka inaan isweydiino horta markaan sharafka ahayn oo qarankeenu xoogganaa ee bulshadeennu midaysnayd xaaladeennu sideen ku gaarnay halkaas sideen saahin maxaase hadda naga halaabay oo sharafkii iyo karaamadii iyo qarannimadeennii buriyey. waxaad ogtihiin waxaan ugu sarreynay waagii xorriyadda la qaatay ee waddanka uu xorriyadda qaatay shacabka Soomaaliyeed oo isjecel, shacabka Soomaaliyeed oo midaysan, shacabka Soomaaliyeed oo qabiil ka guuray, shacabka Soomaaliyeed oo qarannimadiisa ilaalinayo soo jeeda ayaa karaamadeenna iyo sharafkeennaba hogsanaa. waxaad ogtihiin 64 dagaal baa dhacay. ciidamadeennu markaas waxay ahaayeen 4,000 ama 3,000 ayay ahaayeen. waxaan iska celinay dowladdii nagu soo duushay baan iska celinay. diyaaradana maanaan lahayn, hub iyo madaafici waaweynna maanaan lahayn. waxaan ku dagaalamayna waxay ahayd markaas mabaadi aan aaminsannahay ama qofka Soomaaligu uu aaminsan yahay in uu xaq ay tahay in uu dhinto ama uu ku dhinto. waxaad ogsoon tihiin ummaddeennu in ay wax kasta ka hormarinaysa midnimada iyo qarannimada iyo jiritaanka Soomaalida. maxaa nagu dhacay ee qarankii naga burburiyey? waxaa nagu dhacay qarankii naga burburiyey. qarankani wuxuu ka kooban yahay qabaa'il Soomaaliyeed. waadna ogtihiin leegada intayna aasaasin qarannimada Soomaalida iyo dowladnimada Soomaalida intayna aasaasin waxaan ahayn qabaa'il deegaano iyo ceelal iyo daaqsin kale leh. qaran weligeen maanaan noqon. dhallinyaradaasaa ku fakartay marka in ay qaran dadkan isku midka isku luqada isku diinta isu eg ee waxba u dhaxaynin inuu aabbo kala duwan kala dhalay moogi in ay isu keento oo ay qaran ka dhigto sida adduunka. maxaa dhacay marka? waxaa dagaalamay xubnihii uu ka koobnaa qaranka Soomaaliyeed baa dagaalamay. waxaad u garanaysiin civil war ama se dagaal ahli ah ama dagaal sokeeye. dagaal sokeeye waad garanaysiin macnahaasa sax ah. dagaal sokeeye dad aad sokeeye tihiin oo dagaalamay oo ood wadaag tihiin oo dhaqan wadaag tihiin oo dhiig wadaag tihiin ayaa isdilay weeye. waa meesha ugu xun ee dadku ay ku dagaalamaan. dagaalkii sokeeye markuu dhacay qabaa'ilkii Soomaaliyeed way kala tageen. marka waxaa la rabaa marka qarannimadii iyo sharafkii inaan soo celinno markaas hore inaan isku soo celinno qabaa'ilkii Soomaaliyeed inaan isku soo celinno. maxay dhashay kala tegiddii? maxay dhashay qabaa'ilkeennii kala tegiddiisii? maxay dhashay? waxay dhashay inay sameeyaan dowlado gobol ah oo baxtan qabiil ah. dowlado ku dhisan qabiil. waxay sameeyeen xuduudyo ku dhisan qabiil. waxay sameeyeen ciidamo ku dhisan qabiil. astaamahaasoo dhan waxay keentay marka astaantii qarannimada
أما وحلا لو يقان nation state أما قرن مدو صفات بيلاده شن صفة بيلاده شن تصفات أي دولة قبولية ده قبيل ككل السنة أي عدويهين أو أي بربرنا يعني وما حي مركز شن تصفات وحاكمين قرنكو إن أولي هاي إنه حدودي سبضة يبرقة يعركب كأدقية دولة الدحاء ما أقول دولة قبولية يدو إن دولة الدحاء أي كتلسوه هو دولة ما أقول دولة الدحاء إن أي كتلسوه حدود كأي لا هذا هاي دولة كلية أجنبية ما أقول إن أي كتلسوه بدو ذا حدود كأي كلا ليه هندت كلا وحاد إن ما مركو هل صفو أو نيشن ستيت أي هالكاس لقوا بربورين هيا إن أي لا هذا هاي عيدا سجاه أمنية هيا حدود يدودن تينا مجرته إن أي لا هذا هاي أود وحمقون السكرية إن أي دولة لا هاي ما أنت ملان هاي دولة ملان هاي أود وحمقون السكرية ملان وما يملها دد بدن باهوب هايستا لبا حليمو هداي ku dagaalamaan xamar weyne ciidamo dhashiikayaal wata ayaa ka soo baxaya xuduudiyada oo labada xaliimo u kala hiilinaya maxaa dhacay marka taasna waxay burburisay qodob kamida qarannimadii bay burburisay lacagihii midaysnaa ma jirto calankii aan haysanay ee u wada istaagi jirnay aan jeclayn in qalbiga ku haynay iska daa haysashadiisa midabkiisii baa la iloobay siduu u ekaa ummadda waa la ilowsiiyey duqa markaan ahaaba waxaan idhi calan hala keeno dad waxay soo qorteen calan gaduudan oo xidig leh dadna mid cagaaran oo xidig leh lama wa garanayo midabku lahaa soomaalida calankiina heshiis laguma aha madaxdii qarankana heshiis laguma aha waxbaa lagu sheegay waa la duray arrimahaasoo dhan marka si aan u soo celinno waa in aan heshiisiinaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee qarankeenna uu ka kooban yahay maxaa noo soo raacay maxaana sii daciifinahaya oo tabardarrada nagu ridahaya waxaana sii daciifinahaya tabardarrada nagu ridahaya qaran wuxuu ku xoogeystaa in uu leeyahay institutionno xooggan inuu leeyahay iga raal ahada wax yar meeshaana hadallada igu jira inuu leeyahay institutionno xooggan waxaad ogtihiin waddan kasta waddanka uu ka institution xooggan yahay ayuu ka barwaaqo badan yahay waddanka kuma barwaaqooba khayraadka uu leeyahay kuma barwaaqoobo ee wuxuu ku barwaaqoobaa shuruucdiisa iyo institutionadiisa xoogga intay la egyihiin ama ay sharciga inta uu sarreeyo waad ogtihiin waddanka Singapore jasiirad yar oo aan lahayn wax khayraad ah haba yaraatee ma jirto haddana waxay noqotay dunida saddexaad bay 59 bay xorriyad qaadatay dunida saddexaad bay ka tageen markaasay dunida koowaad noqotay hadda ogaada dunida koowaad Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waxaasoo dhan ma aha dunida koowaad kuma jiraan ogaada taas waxay ku tusaysaa khayraadka inayna ahayn ee ay tahay maamulka iyo institutionada intay xoog leeyihiin annaka maxaa ku dhacay institutionadana marka ma leenahay institutionno xooggan ma leenahay qaran leh institution la isku halayn karo ma leenahay malihin maxkamadaheenu ma yihiin maxkamad markay garta goyso qofka Soomaaliga uu ku kalsoonaan karo ma jirto maxkamadaheenina ma ah wasaaradihii ma lagu kalsoonaan karaa wasaaraddan lagu kalsoonaan karaa in ay ummadda dhan u siman tahay oo wasiirkaasi uu wasiir u yahay ummadda Soomaaliyeed mase waxaan sharciyeynay wasaaradda inuu qabiil leeyahay oo wasaaradda qabiil la siinayo oo qabiil hebel wasaaraddaas la siiyay ninka marka la dhahay wasiir hebel qabiil wasaarad hebel qabiilkaas la siiyay hadda wasaaraddaas qaranka ugu ma adeegahay qabiilku ugu adeegahaya Soomaa waxaa la keenay marka in la dhaho 4.5 magaca la dhaho waa madax cadow baa loo bixiyay 4.5 waxay ka soo horjeedaa wadaniyaday ka soo horjeedaa kartiday ka soo horjeedaa aqoontay ka soo horjeedaa
waxtarkay ka soo horjeedaa ammaanaday ka soo horjeedaa 4.5 marka haddii la keenay awal asalku looguma talagelin in uu dhaafo political representation in qofka Soomaaliga ama qabaa'ilka Soomaalidu inay ku yeeshaan masalaad inay ku yeeshaan baarlamaanka waa inta loogu talagalay dastuurkeena kuma qorna meel ay sharciga uga qoran tahay ma jirto 4.5 laakiin arrin la isla fahmay ahayd in qof qabaa'ilku uu yeesho qof ku masala meesha siyaasadda waddanka laga jaangoynayo oo ah baarlamaankii ma ahayn in hoos loo dedejiyo oo wasiirada laga dhigo oo agaasimayaasha laga dhigo oo dhaqaatiirta laga dhigo oo jananada laga dhigo oo amniga uu dhex gala ma ahayn maantana waxaa weeye janan la rabo in uu ciidamo 20,000 ama 30,000 inuu dagaal geliyo ayaa sifada kaliya ee lagu keenahay ay tahay qabiilka uu ka dhashay bas nabad sugidiiba waxa lagu keenayaa qabiilka uu ka dhashay bas booliiskiiba waxa lagu keenaa qabiilka uu ka dhashay ilaahay baan idinku dhaariyay institutionkaasi ma dhisnaan karaa mise ma dhisnaan karo baarlamaankeeni shaqadii ma hayaa baarlamaankeeni shaqadii loo doortay ma hayaa wuxuu ahaa sharci dejiye ma yahay baarlamaankeeni shaqadii loo doortay ma hayo baarlamaankeeni wuxuu ku jiraa ganacsi siyaasadeed buu ku jiraa boqolkiiba 90 madaxweynaha waqtigiisa waxaa qaatay parliamentarianka boqolkiiba 90 waqtiga prime minister waxaa qaatay parliamentarianka ma waxaa loo doortay madaxweynaha in uu baarlamaanka u shaqeeyo mase waxaa loo doortay shacabka Soomaaliyeed geeska gees inuu u shaqeeyo prime ministerka iyo xukuumadda ma waxaa loo magacaabay in uu baarlamaanka u shaqeeyo mase waxaa loo magacaabay inuu ummadda Soomaaliyeed uu u qorsheeyo service delivery ama se adeegii bulshadan ay u baahnay baarlamaankii marka shaqadii loo doortay balse wuxuu ku noqday argagax uu argagixiya madaxweynihii iyo prime ministerkii wax argagixiya oo cabsi geliya oo ay ka cabsadaan sababtoo ah mooshin baankee madaxweynihii baa qaabili waayay mooshin baan ka keenayaa madaxweynihii baa albaabka iga xirtay mooshin baan ka keenayaa prime ministerkii baa xaaskayga u diri waayay isbitaal mooshin baan ka keenayaa prime ministerkii baa wiil ii geyn waayay shaqo mooshin baan ka keenayaa taasay noqotay waa institution dhan oo baaba'ay waayahay institutionkii maxkamadaheena xaalkiisa ka warrama ma maqasheen weligiin 5 sano oo isku xigta ayaan waxaan noqonay dawladda ugu musuqmaasuqa badan baan noqonay Transparency International markii aad aragtay weli ma maqasheen xeer ilaaliyaheena oo maxkamad keenay qof mas'uul ah musuqmaasuq ku soo eedeeyay ma maqasheen micnaheedu waa maxay marka micnaheedu waxa waaye ma shaqeynayo weli shaqo kale uu haystaahe shaqadiisii loogu talagalay ma haysto weli ma maqay maxkamadaheena ka warrama dadka dhulkoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii iyo beerahoodii ayaa laga shaqaysanayaa qof Soomaali ah oo kalsooni ku qaba ma jiro inuu maanta maxkamadaas uu xaq ka helayo ama cadaalad u ka helayo meel kasta inay gartay dhaqankeena ku soo noqda meel inay noo fayoobaatay ahayd hadday noo fayoobaan wayda baarlamaankii hadduu noo fayoobaan waayo maxkamadihii waxay ahayd dhaqankii inuu noo fayoobaado dhaqankeennii maxaa ku dhacay dhaqankeennii wuxuu ku milmay siyaasaddii wuxuu galay ganacsiga siyaasaddu dhaqankeenniina galay wuxuu galay in uu lacag kala qaato reerihiisii loogu talagalay inuu mideeyo ee codkooda uu mideeyo cududooda mideeyo ayuu wuxuu qaybinayaa markaasuu kana jeclaysanaya kana tuurahaya markaasuu kana lacag ka qaadanaya kana ka qaadanaya ummad waxaan noqonay meel u fayow ayna jirin sideen ku soo noqon karnaa sharafkeena ku soo celin karnaa marka haddaan xaaladaas ku simannahay sharafkeena xaggeen ku soo celin karnaa sharafkeena waxaan ku soo celin karnaa intaan qaybsannahay sharafkeena ma soo noqon karo laa yumkin xaggeen ka bilownaa marka waxaan ka bilaabaynaa waxaan rabnaa debate cusub in la furo aragti cusub in la bilaabo dowlad goboleedyadan dadkii qaybiyey ee aan ku qaybsannahay ee aan ku heshiin karaynin waxaan rabnaa dhexdooda in laga hadlo oo dad dhalinyaro ah iyo dad kale ay ka soo baxaan dhahahaya ima deeqdo aniga meeshaan wareegsan ee xiran ee reerka u xiran ima deeqdo qaran Soomaaliyeed baan rabaa inuu dhaho qaran Soomaaliyeed ka soo baxo ilaa qabiil kale hadduu dhaho halkaas ka hadlo qabiil baa la leeyahay laakiin waxaa la rabaa bulsho kasta inay ka soo dhex baxaan dad
raba raadinaya qarannimada Soomaaliyeed ee wanaagga Soomaaliyeed midnimada raadinaya sharafka Soomaaliyeed raadinaya intaan qaybsannahay sharaf ma yeelanayo yaa raadiya marka qaran Soomaaliyeed yaa raadinaya Soomaalida hore uma maad maxay tiri nin wiil hadduu ka dhuma nima waxa loo dirsadaa niman dhalin iyo mid aan ka dheerayn dadka siyaasadda hadda ku jira ma keeni karaan way waxaan dhahaynaa way dhaleen ayaga dhalay marka nin dhalay ma keeni karo maxaa la rabnaa marka nin aan ka dheerayn qaranka qof jecel oon ka dheerayn baan rabnaa waa maxay waa shacabka Soomaaliyeed ee dawlad goboleedyada ku dhex jira in ay dhahaan annaka sidaa noobama cuntaba sababtoo dawlad goboleedkiiba hadhow haddana isximinaysa jufooyin bay u kala jajabi qaar baa xuquuqdooda lagu tumani qaar baan waxba la siinayn qabiilka weyn oo ugu weyn baa qaadanaya wixii dhammaa anigay ugu fiican tahay dhahay marka hadda cadaalad darra ayakii ka dhex bilaabanaysa cadaalad darradaasna ayakii bay burburinaysaa haddana markaasaan sii burburi doona markaasay qaarkood waxay u tegi doonaan dawlado kale u tegi doonaan in ay dawlad goboleedkaas baabi'iyaan ama ay la dagaalamaan bay u tegi doonaan halkaasaan ku soconnaa waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed hadduu doonahayo in sharafkii iyo karaamadii usoo noqoto waa inaan xaaladdan ku jirno inta darisno in ay bulshadu israadsato dadka wanaagsan inay israadsadaan markaan baarlamaanka wax ka sheegay ma dhahay baarlamaanka dhan baa wada xun dad wanaagsan baa ku jira laakiin dadkii in ay israadsadaan oo ay isdoontaan dadka wanaagsan oo mabaadida ka midooba oo mabaadida ay ka midooba hayaan inay ta sharafkii qaranka Soomaaliyeed inay soo celiyaan waa mahadsantiin